دولة إسرائيل وحصار كي دولة إن دونيسا سوماليلاند دناينيسا دونيسا إنay wax badan la qabato runtii waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi oo kaamintiisa bisil aragtidiisa fog iyo dadaalkiisa hagar la'aanta ah ee uu ugu jiro horumarka dalkeena guulaha diblomaasiyadeed ee aynu maanta soo gaadhnay oo ay ugu mudan tahay itiraafkii ay ka heshay dawladda Israa'iil waxay xaqiijinaysaa in halgankii iyo dadaalkii shacabka Soomaaliland uu midho dhalay waxaan ku kalsoonahay in guulahaas ay horseedi doonto itiraaf iyo xiriirdo caalami ah oo kale kuwaas oo sii xoojin doona kaalinta Soomaaliland ay dunida kaga jirto waxaana haweenka Soomaaliland ugu baaqayaa inay xoojiyaan kaalinta ay kaga jiraan qarankooda dhaqaalaha laftigooda waxbarashada laftigeeda caafimaadka iyo ilaalinta nabadgelyada waxaan leeyahay adduunka waxa dhisaa waa dumarku haddaanay isku duubnaan waxba ma hagaagayaan waxaan idinku baraarujinayaa inaan qarannimadeena ilaashano haddii aynaan inagu ilaashan cid kale inoo ilaalin mayso marka aynu ilaashano aynu xoojino mid kalena waan idinku darayaa dumarka Soomaaliland waxaan ku baaqayaa dal iyo dabadba inay isku kalsoonaadaan oo ay mid noqdaan sidoo kale waxaan ugu baaqayaa dhammaan shacabka Soomaaliland inay sii adkeeyaan nabadgelyadooda wadajirkooda maadaama guulaha waaweyn ay ku yimaadaan isku duubni iyo in danta qaranka laga hormariyo danaha kale ugu dambeyn waxaan mar kale u mahad celinayaa ururkayga qaaliga ah ee naawo isku duuban iyo dhammaan intii soo qaabisay munaasabada qiimaha badan waxaan alla inooga baryayaa inuu inoo xoojiyo nabadda horumarka iyo karaamada Soomaaliland in laguna galado guulo kuwa ka sii waaweyn idamka Rabbi ha noolaato Soomaaliland ha noolaadaan dumarku waxaan leeyahay aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa wad mahadsantiin